iyadoo xalay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe lagu doortay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa ayaa saaka la arkay ciidamo hoolka shirarka la wareegay taasi oo ay sheegeen in doorashadii xalay dhacay aysan ahayn mid aan waxba ka jirin. siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa doorashada ku micneeyay inay tahay mid cadaalad darro ah. beelaha yacni maaragtay gobolka Shabeellada Dhexe degan marka ay maqleen in la yiri cid maaragtay si guud dad isu sharaxi kara ma jiro, si guud dad u tartami kara ma jiro, hebelna madaxweynuhu ka naqaa, hebelna madaxweyne ku-xigeenuhu ka naqaa, muxuu ahay hebelna yacni wuxuu gudoomiye baarlamaanu ka naqaa. marka madaxweynuhu amarkaas bixiyay ay madaxtooyada oo amarkaas ka soo baxay kadib waxaa dhacday in yacni maaragtay doorashadii la galo. doorashadii haddii la galay waxaa la yidhi beesha shiidle ee gobolkan Shabeellada Dhexe wax ka degta waxaa la yidhi gudoomiyaha baarlamaanka waa la idinkula tartamaa. waxaad ogtihiin oo aad goobjoog u wada ahaadeen shalay wixii dhacayay oo foolxumada ahay oo meesha ka dhacay beesha jareer weyne markii ay yiraahdeen war waxaanu suuragal maaha, qaabka wax loo wadana wax dhici kara maaha, corruption-ka iyo musuqmaasuqa ka socda meeshan suuragal maahan ee waxaan hal hakiyo in la yiraahdo albaabka ka baxda rabtiin. shirku maalin walba waxa la lahaa maanta waa xiran yahay, maantana waa furan yahay. cadaalad darrada Soomaalida ayaan la qabnay tan inaga gooni ah haddaan nahay beesha Mudulood. waxaa dhacday in madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliya in uu ku dhawaaqay shakhsiyaad asaga oo danaynayo maahan in cid kasta is sharci karin. marka arintaas ayaa dhibaatada ugu weyn oo aan ka qabanayno shirka jaraa'id. waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin nabad, waxay u baahan yihiin cadaalad, uma baahna tahdiid. rahayay bal mar aan isu nimaadno, aan mar uun arrinkan ka gudubno, aan lamada gobol dhisno. cadaalad darradii intaas uu ka qaylihayay gobolka Hiiraan ayaa gobolka Shabeellada Dhexe ku dhacday. waxaa ku dhacay xukun ah waxa anugu aan rabo hal la yeelo. haddii amarkaas uu socyo igad iyo qaramada midoobana waxay qabanayaan ma naqaano. siyaasi Ali Xasan Taako oo ka waramaya doorashada gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa oo xalay la doortay. waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu horeyso wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii arrintan aad iyo aad ugu howlaneed. wixii shalay ka horeeyay waxay qabteen aadan uga mahad celinaynaa. runtii laakiin shalay iyo habeen hore wixii dhacay meeshan aadan uga soo horjeednaa. wixii shalay iyo habeen hore dhacay aadan uga soo horjeednaa. waxaan ka cabanaynaa oo runtii aad uga cabanaynaa in doraad galabti ay soo gaartay magaaladan Jowhar gabar xildhibaanada oo ka socota madaxtooyada Soomaaliya oo lacag tiro badan wada, taas oo loo adeegsaday doorashadii halkan ka dhici lahayd laguna marin habaabi. arintaas runtii aadan uga cabanaynaa. madaxtooyada Soomaaliya ayaa soo faragelisay, xukuumadda soo faragelisay. waxaa ka dhaca meeshan musuqmaasuq baahsan ka dhacay, lacaga waalana la keenay. doorashadii iyo ummaddu waxay ku heshiisay iyo wixii oo dhan waa laga baxa. saas darteed arintaas aadan uga cabanaynaa. waxaana loogu adeegaa arintaas doorashada 16 ka dhacaysa madaxtooyada ka dhacaysa Soomaaliya ayaa arintaas loogu adeegaa. waxaan leenahay shirka waa joojinay ilaa iyo amar dambe, ilaa iyo laga helaayo dadku ku heshiinayaan. duubabka runtii aad u soo dadaalay. inkastoo ka xunnahay in shalay loo isticmaalay wasiirada iyo duubabka intaba in siyaasad loo isticmaalo, siyaasadda kul milmeen oo dhex galeen. runtii aad aan uga xunnahay arintaas. haddana annagoo ixtiraamayna waxaan leenahay arrintiini waa soo dhamaatay, arrinta faraha kala baxa, arrintu marka siyaasadii joogta. shirka maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee lagu dooranayay gudoonka baarlamaanka ee ku-xigeenadiisa ayaa saameyn ku yeeshay siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed, iyadoo mid ka mid ah beelaha degan gobolka Shabeellaha Dhexe ay shirka isaga baxeen. Hussein Ali Geesi, Star TV, Jowhar.